والله واسك فرح سنة هبين هور استادس وحيسو صارتي امتحان نتيجة فرحني إلهي هنقل كل مية قارتا لوgu dhuftay mindi iyo kaliyaasha 4 meel ay ugu dhacday ka bacdi way oraday markay oradana way urduweysay way dhacday guriga niga dambeeyo waa guriga ay ku nooleed ilaa u naxariistay marxuumad Hibo Qaasim Maxamed oo ka mid ahayd ardayda shalay ku baasay imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare oo wasaaradda waxbarashada ay ku dhawaaqday halkan waxaa ka jirta tacsida marxuumadda waxaana ay kulantay maalinta farxadeeda oo ogaatay inay ku baastay imtixaanka dawladda iyo geerideeda marxuumadda ayaa u geeriyootay toorey 5 jeer lagu dhuftay mana jirto agab ay wadatay oo la qaatay sida ay ku warameen ehelka ilaahay anaga dhan naga wada baxday ilaahay u naxariisto waxaan u ahaa gabadh abti ilaahay jannatul firdaws ilaahay ka waraabiyo kulli waa dhacad xanuun badan waa gabar 18 jir ah sida markana loo xaqiijiyay kulli waxa nagu leeyiri aniga goob joog ma ahaynin in toorey lagu soo weeraray oo hal nin uu weeraray alxamdulillah uu tooreedii ninka uu ku duray ilaa 4 meel ilaa 3 meel la tilmaamay marka kulli hadafkiisa mobile dadka tilmaameen laakiin mobilka kama aysan qaadanin marka mana qaan kulli insha Allah waxa codsaneynaa in cid alle cidi oo barnaamijkaas wax ka qaban karto sida dawladda federaalka Soomaaliya in ay arimahaas baaritaan ku sameeyso adeegii markay soo qaadatay soo laabatay xaafadii ku soo socotay marka iyadoo xaafadda ku soo dhawli soo gaarin markay jidka ka soo leexad soo maraysa meeshaas yaa kulli ninku meesha uga soo baxay wixii dhaxmaray iyo qaabka uu la hadlay cid garanaysa ma jirto Allah baa yaqaan laakiin mididii ayuu dheer meel uga dhuftay uu uga tagay xataa mididii iyadoo ka taagan uga tagay xataa mobilka kama uusan qaadan Allahu a'lam wuxuu uga jeeday danta uu lahay cid soo dirsatay garan mayno laakiin mididii uga tagay way uu ka tagay dad way ka soo carartay yaani dad dariska ah oo meesha marayeen yaa arkeen midida xataa iyada gacanteeda iska bixis iyadoo soo cararto isla saxaafadda naf la gaar waaba qanbala fay dhahday way dhacday dad meesha marayo qof asna xanuunsan waday wiil meesha marayay yaa qaaday ceelasha isbitaalka yaa la geeyeen isbitaalka ku nafaxda marka cid insha Allah garanay xaqa kulli asaga soo daahir doona والله هو خاصة محي أهد أرديد أدي أدو في عن دقن أخلاقي أدب له إيقو سوى إنت ستي أهد أدنا وحان أهن صاحبه خفتي وسود دوية أهد قعنك حقدرنا يدي شيء الله أنحرسته فك يعني أو قعنت سك حقدرنا الله حقنا وصل عيان لنا هاي نجم قاسم محمد وأهداد كوين مرحومة جيريوتي ayaa sharaxaysa sida dareen ahaan ay ugu faraxsaneyd natiijada imtixaanka marxuumadda inta aysan geeriyoon markaas hooyo waxaan la imtixaankii la soo saaray wixii la isdhahay ku soo kacday markaas ay dhaaday linkiga hal ii soo sheer garay linkiga loo diray iyadii mid kale oo imtixaanka isla galeen labadii bay fiiriyeen wiilka qolkaas oo degnaa wuxuu yiri yes alxamdulillah waa guuleystay idna qolkaas meel ay istaagtay markaas waxay tiri hooyo inta taagneed markaas waxay dhaaday hibo maxaa ma dhacday ma qosolosid alxamdulillah markaa yeeroosay ma dhicin waa guuleystay alxamdulillah alxamdulillah idinka ma idin maqashiinay dhaaday markii ani waa guuleystay ilaahay i guuleen waa xamdi idinka ma idin maqashiinaa waa duhur dukatay markaas waxa la suuqana aadinay waa soomantay nijmaad aadisay suuq ana soo qaaday tiraajinka leewa iyo qudaartan yaryar ana dhab soo siinay kadibna waxaaba la keenay iyadoo meed oo la fileynino ma aragtaane ardaydii ma aragtaane koowaad ilaa iyo waxa isla soo marayeen form 2 ilaa kanoo hadda 2 sano dhiganayso form 3 form 4 ardaydii aba meel kala geelaya dad kale inta la gaaray ilaa u naxariisto kan waxaan u joognaa aaska Allah u naxariistay walaasheen Hibo Qaasim Maxamed oo ka mid ahayd ardaydii shalay wasaaradda waxbarashada ay ku dhawaaqday natiijada imtixaanka dugsiga sare ee sanadkan la galay waxay ku geeriyootay dhibaato lagu geystay xaafadda yiraahdo taagane oo ka tirsan waaxda ceelasha biyaha ee deegaanka la foole aaska waxaa ka soo qayb galay macallimiinta iskuulka Iftiin iyo midowga macallimiinta waa midowga iskuulada deegaanka la foole aaminsannahay geeridu waa xaq waa la dhimanaya kullu nafsin daa'iqatul maut
qofna waqtigiisa ma dhaafaayo laakiin geerida kala xanuun badan arday maaragtay duruufo kala duwan wax lagu soo baray oo maaragtay waqtigii ugu farxadda badnaa inuu imtixaankii qaranka uu ku baasay natiijo fiicanna uu ka helay maalintii uu faraxsanaa dabcan iyo geerideedii ayaa kulmay ilaahay waxaan uga baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuu naxariis waasac inuu siiyo qabrigadan allahu waasiciyo hibo qaasin maxamed allah naxariistaan u tacsiirina oo gacanka xaqdan ay dishay shalay lagu dilay ceelasha biyaha 10 saac allah naxariisto waxaan u tacsiirinaynaa ehelka waalidiinta macallimiinta ardayda iyo guud ahaan dadka deegaanka ceelasha ayaan uga tacsiirinaynaa arrintaasi dilkaas foosha xun ee dhacay waxaan ilaahay ka rajaynaynaa gacan ku dhiglaha inuu gacanta ku soo dhigo oo la soo qabto diyaal insha Allah anigoo ku hadlaya midowga dugsiyada deegaanka Lafoole waxaan ka tacsiinaynaa dhammaanteen anagoo isku duuban geeridaas xanuunka badan ee ku timid gabarta ardayda ah ee ka tirsan bahda waxbarashada ee ku howlaneed waxbarashadeeda iyo dadka diinta sidii u anfici lahayd maxamuud cali xayle oo ah adeerka marxuumadda geeriyootay iyo qaar ka mid ah ehelka ayaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed ka dalbaday in ay cadaalad u helaan gabadhooda qofku inta wees nafta uu qiimo badan nafta bini'aadanka qiimo badan ay ku fadhidaa in maxay ummadda la daryeelo oo dowladda maamulkan koonfur galbeedaha meeshan iskale oo ummadda maxay ay amnigeeda oo sugaan aan ka codsanaynaa iyo wixii kale oo amniga u qumi kara oo maxay aan ahayn iyaga ama ummadda hees xilqaanto xaafadda degan ama dawlad ha helaano amniyaan u baahanahay daryeel amniyaan u baahanahay waxaan cunay ilaahay ka helnaa cadaaladda waxaan u baahanahay inay noo soo qabato jildilkaas gabadha qofka u geystay inay noo soo qabtaano ayaan u baahanahay naxtin geeri naxtin laha ku aan ugu dhacday ma fahantay ya waxaan u baahanahay si cadaalad haday jirto in ninkaas tuugadaas oo gabadha naga dishay inay noogu soo qabtaan ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan xaafadda taagan ee deegaanka ceelasha biyaha